بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسiga ku saabsan sidee galbeedna loo joogaa diinna loo ilaaliyaa wax fudud maaha. ugu horeyn qof kastoo ummad qariib ku ah stranger ah aan deegaanka iyo culture iyo dhaqanka ummaddaasi ka tirsanayn ma fududa wixiisa inuu haysto meeshuu doonaba dunida ha ka joogo. qofka galbeedka yimina waxaynu nimi bia ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh, inagoo afraad oo qaybqaybsan oo keliya. su-aasha isweydiinta lena waxa weeyaan oo u baahan inaynu aada isu weydiino, ma waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano mise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsano? yani ma waxaynu u nimi maalan waxa qura aynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo caruurteenna, faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta. marka ma waxaynu u nimi inaynu wax bedelano oo maalan diin dhaqan af waxa intaynu bedelno aynu wax kala qaadano, mise waxaynu u nimi inaynu waxeennii wax ku darsanno oo hadafkeenu wuxuu ahaa intaadana hayso insha allahu in kalena ku kororso ku siyaadsa keebuu ahaa, waayo mid kasta waxba ka ratibmaya. sideedaba qolada sociologiga waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa identitygiisa, afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa, wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaada bay yidhaahdaan fii sacaada wa raaxa wa itminaan ilbaal, xasilooni, deganaansho iyo rayrayn iyo badhaadho. waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay siduu u fakerayo. maalan markaynu waddankeeni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aad la wadaagto, diinta aad la wadaagto, dhaqanka aad la wadaagto, wax walba aad la wadaagto. marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto aqalil majhuud, waxay dhahdaan effortka ugu yar, juhdiga, tamarta ugu yar iyo waqtiga ugu yar baad gelinaysa, maadaama aad bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba. bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhanoo dowladdu u samaysato, wasaaradda waxbarashada la yidhaaho. waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka, media, tv ha noqdo ama radio ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddankuu leeyahay, mainstreamka. waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo systemka waddanka, oo haddii inta aad ka soo gudubto waxaa ku qabanaya maxay? qaanuun baa ku qabanaya. marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantay. haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama 10 qof oo kala gedisana aad u timaado bulsho sidaa u dhisan, bulsho dhaqankeedii, afkeedii, schooling systemkeedii, mediaheedii, waxbarashadeedii, qaanuunkeedii u dhisan yahay, qariib aad ku tahay, stranger yimi aad tahay, aad se rabto waxaagiina inaad ilaashato waxna ka kororhsato, waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi. laba shay baad dareemaysaa bay leeyiin, kow qurba, qariib inaad tahay. ka labaadna waxay dhahdaan challenges, waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin.
haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii ay isku dhanka u socoteen. marka kan waxaad u baahantahay bay leeyihiin waqtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xijin lahayd, intaa kadibna aad ziyaado soo hesho. qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaad tahay, muctaqadkii iyo waxa la aaminsan inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan, wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan. ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat, wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya, mansabdoonkaaga, lacagdoonkaaga, baahiya bini aadamkee kala gedisan, wax badan oo hor orda. asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah. wain tutic akthara man fi lard, dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan. qolo sociologiguna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar, koox yar baa hogaamisay bulshada weyne, xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa, dhanka loo wado uun waa shibhead theory bay yidhaahdaan, theoryga xerada xoolaha. waxay dadkaba ka dhigaan inay dad xero ku jira yihiin, xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin. ilahina wuxuu le wa in tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah. haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho, laba khiyaar oo quraynu haysanaa, mid saddexaad ma jiro. laba khiyaar unbaa yaalla, laba doorasho, optionskaad haysaa, yani waa laba un. inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii, xooggeedii, tamarteedii keenaysid, dheeraadkana markaad raadsanayso, kaasi waa option. optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awal baad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo, mala kaasaa ka fududkane. waa labada, mid saddexaad ma jiro. ka saddexaad dee waa inaad dhimataa, ka saddexaad waa inaad milantaa, waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa. kaasi isagoo option maaha markaa. qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan, ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo. noloshu alxayaa kullahaana waa challenges, nolosha gebigeedu waa caqabaad. nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay, noloshu waa dadaal iyo caqabad la raba in laga tallaabo. ee keebaad diyaar u tahay? ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa, waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid, mise waxaad diyaar u tahay war halkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato. dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay, wax la cunaa la raadinaya, dhaqaala la raadinaya, nabad baa la challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo. labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay, iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen. waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen. marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa. waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii, oo dee iyaba dhul muslim may joogin. yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd, madiinana gaalaa deganayd, carabina gaalay ahayd. midhmidh baa dadka uu islaamay, dhowrkaa qof oo u islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta. afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta. marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno. taariikhdu qur-aanku ka waramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay
ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbat alislaami aluulaa siday uga baxeen waayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة الرفض معها ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه تشالنج يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو الدين تيسا إنه هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا يعني دحول طبعا قبطها وتشالنج هذاك وقت أي سيدا الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka id ka mid ah nabigu tilmaamayay sida awgeed quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yiraahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nabiya ka dhashay نبي بدنا قرآن كم تلمامي تا إسرائيل ونبي يعقوب إن كيسيو محيا نبي يوسف ولا الذي وهي علماء بدلي النبي مركز دم النقدين أنبياء بدن نبي سليمان نبي هود معها سليمان أبيه داود نبي الله موسى أنبياء بدن الرهر بن إسرائيل ودت صالحين قرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إن كمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون رب إسرائيل وحكم إذا أئمة ضد لقد ضيده ودين إلهي كل جي مركي أي كل صبرين إن يوحد حجستان يقين تودنا أي رسم هاي يعني لما مدنا مجلين وحن أي دين تهيستين وين رمي سناي ويقين سناي second to that obstacleski كهري بالدباطة دي كهرت من وما يلعين وما يدبعين لما هذا الشيء مركي يسله هلين با إلهي ليه أي واحد يقول نقدين بني آدم كتصالح كواس رير بنو إسرائيل بكمد هاي وحكوا إلهي القرآن كأنه قرر ما يجروب كلامين رير بنو إسرائيل كمدي بالجروب كلام هيك نوح إلهي كوسيفي وقطعناهم في الأرض أمما غير بنو إسرائيل وجوجوين بإلهي دول كالوفا فيه منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كوا صوبا يكوا حنبا ويلها ينبا إلهي ليه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون دباتوين يو وناقبا وكو اتحامن بل إنه يصور نغضان إلهي وحشاق مركها كوا كوي كجدن بي وكوي لمي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداشد وحمري قلو qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxalay waliba abiyi hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitaab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lex jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sideska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayugfaru lana wain yaatihim caradun mithluh ya'khuduuh
waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawr wasideen waxay odhanayaan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi طبعا ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay marka la iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa ghafuurur raxiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnimo waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baa inoo dhaafay laakiin maaha ghafuurur raxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wan yaatihim caradun mithlu yaakhudhuhu baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mid a hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu uhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay dee xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhiro inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yihi waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi masaka oo bitadciifa luqa alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado waxaa laga yaabaa dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kani waa qof raba maxay inuu xejisto kuwa xejisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajarkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu idhaahno insha allah sayuqfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayuqfaru lana ku dhisino ku binayno وعلى هذا المذهب قادنه يينو قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حكي سنه جيل كهر الصحابة دو سيداي وقبحين صور يركوبا بواحد كسيني أفرتي السورة دو قرآن كوجه الرئيس ودقة علماء دو حيسكوا أفق سيهين أفر سورة دو قيبا وجه الرئيين قرآن كوسه ردقين والله جاي بقى الروايات كويس ضافين يا أفرت نسي وكله الرئيين أنا دركته لكن أفرت سيني هنا أفرت وجه الرئي أي بديبة علماء دو تلمامان وسورة العلق انت وجه الرئيسة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كوجه الرئي وسورة المدثر آيات كوجه الرئي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوجه الرئي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوكحية هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون حول ما ذو يدهدان وحيجي كواد النبي محمد كوب بالعظم وحوها وحي أنسي فضود لوجو شيء يسيح وقال لوجو شيء يعني دور شربو جبريل هل كان قبطه وانتو نفط يسوق كان النبي قال اقرأ والنبي يقول ما أنا بغاري حتى مركز نفط كل يقعدوا سيدا يولي اقرأ هاي علماء ذو يدهدان الأصل في التعليم وإن سفضود يسوق شيء لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وح فضود إنان وهينين لسوت شيديو أفرت الشيء محي شيء يعني وجه الرأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ينون والقلم وما يسطرون هاي علماء ذو يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لو حجين كرين يدو جاهل ليي إن وحبل لحجين كرين أصل كدين تونا إن كوسا ليسان تاي عرب أختي جدي وحلا جاية با أقون دتك وجودا بيجين أيه باهيها قبتك لو حلا جاية با أدي أديك القرآن لها محل وجو يصلحين لها عدالة أهل الرادية كان أهل الرادية وحبض روك لنا تلمام الهيد لكن مسألة التوحيد والعلم بين هذا وهذا سعتي أصل كوحي مركا أقون إله إلا برته رسوشي سلا برته آخر له أوجاده علمي ما لقوا حجين كرا وشيء كواد اللي جفهم أيه بين هذا شيء قال بعد اللي جفهم أيه آيات كانوا حويان بيليين
qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada, ama adaa lagu raadaynayaa, adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya, ama adaa wax raadaynayo groupkaaga isku dayaya inaad biiriso, halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya. saa awgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir. kan isduuduubayow baa la yidhi kacoo dig, kacoo diin sheeg, rabbigaana weynee, wa hiyaabaka fatahir, naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan daahir yeel, warujsa fahjur, xumahana ka hijrood, walaa tamnun tastakthir, waxaad wadana ilaahay dartii u wad, xole ha ku raadinin, adoo ku badsanaya ha samaynin, walirabbika fasbir, jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa la leeyahy. yani waxaa lagu bilaabay nebi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee kusoo degay sida culamo badani qabto, cilmigii ugu horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxooga riyooyina, cilmi intaasuu hayay. haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay? mabda'a faafi, mabda'a bilow. idan waxay dhahdaan khayru difaac, si laysu difaaco waxa ugu fiican bay dhahdeen adigu weerar gasho, in adiga marka lagu arko la yidhaha war waa kii wadaadkee mudiin sheegay xagga inooga du, adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo. laakiin insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a la leeyay mooyaane. saa awgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qawlan thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila wadkur isma rabbika bukratan. okay, ilaahay wuxuu leeyahy kan isduuduubayow kac, ka isdadayow baa la yidhi kacoo ilaahay isu taag. markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah, haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa? sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii u xidhiidh kala lahaa, war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara. maalan problem dhaqaalaa kugu dhacay, marka koowaad aad mushkiladda xaliili karay waxaad odhanaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya, marka maskaxdaada markaaba waxaa kusoo degdegaya midharhkii xidhiidhkiina uu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxyaamaahema inaad wax ka weydiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal. qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiyaa waxa weeyaan rabu samaawaati walarda inuu xidhiidh la sameeyo, man biyadihi malakuutu kullu shay, ilaah gacantiisa wax waliba ku jiraan, albaabkiisa inuu garaaco. saa awgeed baa nebi maxamed markay dhibtu ka hortimi ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila, kan isdadayow, kan isduuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane, nuskii ama wax yar ka yaree baa la yidhi. maxaa lagu cileeyey? inaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi, war culus baa lagu dhiibayaa. dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy, war culus baa lagu siinayaa. laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinaya waa maxay? xidhiidhkaad ilaahay la leedahay. kulamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo, isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa. mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa. idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato, waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane. shubhada daliil baa kaa riixi kara, haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa. idan cilmi inuu yahay laabud. shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa, inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato
faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a qaar sidii loo toorjar garaynayay iyagoo tii u dambaysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi mu'miniinta waxaa ka mid a rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheego qadiyatu sidqi idan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballan ay ilaahay la galeen faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami alsalaati waitaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar waa rag baa ilahay leeyahy kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunyo xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa salaada ogisteeda marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa qolada tan waxa lagu sifeeyay inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad ka yar cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalintaa ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga ule number one ah cibaadadooda iyo kooga kan markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaad ee nebiga kusoo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxaa qiimaha badan le inu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aaluhu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa ale baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhahdo ay ku taallaa ciraaq
waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii Madain waa Baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah ay surtaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطة قال هذا كلنا واحد هجامين إن رستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان رستم حر اللي ما كان من تلسيد يفكر يعني إنه وجاده وحو سعد ويديستي إنه الصادره عد وده هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوء عليه متكلم بلي صادر والله صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي هي كل بمدو تجي مثلا ميت كم يدون هذين سوقاتنا ربعي بن عامر با كمدا ninkan wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha ربيع بن عامر وفرس يرو قابن وتا soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaacay waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu maan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سواب حيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع النابو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتك الضومة ونقضان ودتك حرية هلان فهنوسع النابو لين cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kala u soconaa buu yidhi inaanu dadka dunida ciriirigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay ciriirigan kaa saaraya ciriirigu waa qalbiga kan adduunku qiimo lama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye ciriirigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبرك الدنيا كغفي عنو تاغن يحي إنو معتز بالدين يحي دين تيسا وحو دغان تاينا انو جيرين انو رميسن يحي تاسو waxay kan sanaysan qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu nawxina leeyahay hatta hadii sida kale dhan leedin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war haliidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaan u jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Maka ah ee Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam rabbiga ay u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale 10 al-mubashirin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa
saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaaye sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar usoo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan kusoo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abuu cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid quman baad ku taagantay wa inahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وحلاني شيء كواد حويان إنه غربدا كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كتل مامين كقبحيين إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي إنه معتز كوهانه ضد كفانية waan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha noloshoo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga abaa ka roon kalimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto walidaalika baa ilaahay reer banu israa'iil kii hagaagay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina يوقرون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقى هلا يوبا إلى هيدي صبرة والله الصبر نكتبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كلو إذن كهر إيمان ياي يدك الصبر بدن نبا إلى هيلي ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكتشرتان إنه في سيدين نحي جسته إلهنا كعب صدى وقولي سندون تنبا إلى هيلي سبحانه وتعالى انت كذب حينو باهنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو صف ضد وحوة كرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka badhba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsan iyo in si dhamaqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay uslubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan ولا النبي قوت مي يقعد كل شيء يسيو عاية ناس واحد يقول هذا السلام عليكم السلام لام كان لقبودية لكن واحد لسكر جاي يدي الليل السلام عليكم السلام عليكم وجري كركا جهات وأخبار السلام عليكم نوا ربي هكو حفظيه لما تقول يي وانا كركا جهات السلام عليكم نوا موت يجري بلايو كركا جهات دبتنا عايشة أنت عروتي مركبة واحد تري بل وعليكم السلام واللعمة إذنك عرض اللي يقريد سينا عاد الشيء وكوركي إن إذنك ها طبيعي تري نبي عليه الصلاة والسلام السجو كون مغلى يوحي يراهدين عايشة أنا مغلى يوحي تري أيوة عايشة هدنا تلصينا يوحي لي عايشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكوسي دبع سن تتكون مرية يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسل الله سمايو أي الله تعالى سبحانه وتعالى عايشة وحي مود نبغينا أنو مغلين ملا دمرتني يعني وركبانو مغلين أو لم تسمع ما قال وحي كهد لين مياد مغل إلهي رسول كيسيو قد قلت وعليكم بنقول ومغلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحنو قدن لنا هي حديث الرواية إمام مسلم وحي الإمام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم وريني الرجيني يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنو قدن لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمان تودان حج سنو تام معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنف يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهم أيوه واحد لقى فهم أيوه إنه عقيدة إسلامية يدقن كإسلامية ينقضوا الموضوع قضية كلام تلمامة يوحويا وإنه كلا قرنا محن قاضنا إن محن كتجينا وين كلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إن ذوبان مسي اندماج هالكن مركز شوكتان ريال الله يدين شرح الله يدها محي assimilation هي integration dadka barbay dhahdaan geed toobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geedtoog waa intaad meel isku qafilso xira yareeda wax walba may tiraahdo taa de adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad de meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho waarad xaqan u soo bixin ku darsan kuna de waa adoo dhintay oo iska milanku waxa soo haray waxa iyaguna inagu wacdiyaan inaan u baahnay inaan fahamno la yiraahdo integration meel walba waxa la leeyahay integration politicians iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan ان تعددku iyo noocyadka kala gedisan waxyaabo qaar kood way ku fiican yihiin laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad
isu aragtiyo isku dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integraysto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كضيا نو وحول بكا قاضنا إنه وحكا فائدنا أقولنا ككرسنا وحوين بول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نين إنه كقاضنا ويا لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كيني عبادات كيني وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إن يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كيدت كيدين كهرية تاكا تاكا يدودودون saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoreysatay caynkana buu warka ku leeyay markaasuu nabigu wuxuu yiri waliba hatta law dakhalu juhra dabbin tatabtumu aw la dakhaltumu hatta haday god masalugalay god masaagalay haday galaan wa ka daba galaysan buu nabigu yiri markaas waxa dhahay ya rasuulallahi al yahuuda wan nasara ma yahuudiya nasara qala faman ya kalamu nabigu yiri يا كله مالين كلو هدنا النبي وحو يدي حديث كان وكله سورنا من قبلكم براعي دونتان مركز واحدة الروم والفرس ما رومانسك يو بيرشيان كا يا كله النبي يدي ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسره وحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة وضد الرومانسك يو بيرشيان كا يا راعي دونتان hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxa raacaysan maxay اليهود والنصارى idan asalku muxuu xadiidkan inoo tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaara muxuu kaga soocan yahay romanis iyo persian muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo aqaa'id iyo diin bad kaga soocan tahay maxaa wada leedin tajaarib al-insaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu experience ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badan waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tagaynaa inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسب إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحيد دلالي أنت أنو هنون النبي إلهي لي إلهي آيات كيسا بركة مقالان وخضوعنا وسجودا لكن جروب كان النبي هذا كبحسن بإلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب كوا ضبا مريبا إلى هيري وهو ضدودي كوعد محي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي اسكر راعين كواس النار تقلي ينبالوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دلنا لنا حي وإنaynu garanaa waxaynu haysanayno وإنaynu garanaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamayaa watlu calayhim naba alladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الشayطaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay
haddii ilaahay doonayo qofkani de qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheega waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaydaanko qura maaha dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum lxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihiin baa ilahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadi inay gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo uu xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kaleoo ku ugaadhsanaysa oo meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah haddaa is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garanaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneedee diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku waxa aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu afka geliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya يعني كاسي وحا يستا ألمني نفسي ولمني العقدي ولمني الفكري ولمني الصحي ولا وحي الشيغان ودنا يكور رمان أياكو صوروري لكن إنك وابرست في غير السرب جروب كي سعيد أنا إنك وابرست مبادئ أفكاري عقائد كلا قدسان لا إسكاله هريه ماضو كاسي مال خطر وجوغا مركز سؤال شو محيطاي haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataana wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay inta diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaale tahay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo
macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan dee you should pay haddaad rabto hadaynu rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mididinka waxayda bara laakiin maxay u baahan tahay dee inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidho maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadayda anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadayga inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teena waa caynka haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa ee goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa ku leh wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garaynaya haddaynu juhd iyo time ku invest garaynaya haddaynu lacag ku invest garaynaynaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa إن شاء الله زيادتنا والرادعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين